السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كسود وهذا على السؤال برتحنا فلقين تورك ود بيجوده هي بنان كمان. والله وحنت كعصنا عن شلقة دوك عصب تحنا الله فضلا شركة الله كيكم تكلوا بني ذكر عليا. دمان أمد الصومالي وسلامتين. هبين هوري هوشي سوق بجودي دورشلي صوماليا. يس. سوق بجودي وحين كفلانين. باك صبح ماشي. صومالي ويني وحين كفل ماشي كسبودي. doorashadii Soomaaliya waxa ku guuleystay ninkii la hayay Xasan Sheekh oo la taqaanin Xasan Sheekh baa ku guuleystay 240 dhibcood buu ku guuleystay farmaajina waxa ay xan dhaxaa 110 dhibcood buu helay see ku dhici kartaa how malis weydii Soomaali dhan kulli 70 million oo Soomaaliya baa maxaan waxay taageersanaayeen حندها فرماجي تاجر سنين بقول كيف سجاش وحال فيلن إنه فرماج صول لابتو سيكون دعكرتا هاو إنه ماشي كده مسماسك يلالوش يوح لوتشي أن كدقي حندها دو بلود كورنكا ورسومالية كداي وركداي ورسان هوش ما ورودك النحا ورودك سا حندها وقلنا أيوة وكاسة كم عاش مانت سومالي وحي سعطان مانت هو كده عادي صدنا سنة أفر وحن أسوه الجميني هالمر بيسلف وقصت ومالي وين كم عاش مركز صدن يا أفر سنة يا بين الدب ولابن صدن يا أفر سنة يدور يا تشرنا هو مربع هذينا حسن شيخ أودي بيتين ما أنت ما ملكه حسن الشيخ أول تقانين نيكسونيكي بدها كتبة ونيكسونيكي أفريقيان توسيتشو دي ما ونيكسوحان نانيك قبله سومالي عرف ودوفيني سوما ونكان عيالك حان راهي مساكين دبهد اللي سو سقا ما هي سيكو دحرتا marka doorasho meesh ka dhacayna doorasho xan dhaha sax ma ahayn waa doorasho xan dhaha ragaan san iyo bad ay u soo fakarayeen u soo shaaheynayeen say farmaajo xilka uga tuur lahaayeen kulli xaqeey wada ognay yaan la isdhaga tagin Soomaaliyeey ooy doorasho aan shacab Soomaaliya aan loo ogolay in gudaha soo galaan ay codkooda dhiibtaan xagga lagu arkay doorasho kaliya afarni ay ku koobanta xagga lagu arka adduunka war xagga lagu arka waay dadka meesha maxaan dhahaa bando looga saar waay wadanka loo xiray taamala Sweden maxaa wadanka loo xiray soo in dadkina soo gali karaan ma waay meesha laga dhigay very high security alert yaa laga ilaalinaa meesha shaq wax la yaab wax Soomaali oo meesha oo ummad Soomaaliya oo shacaba meesha may joogin afar nin baa joogay ee raggan ay keensay meesha iyo dhowr xildhibaan oo saxanda oo sheekay isla og si xanda farmaajo Allah have a nice day farmaajo waan ku xumay farmaajo I'm sorry man anu waxaan fiilayno soo laabta laakiin suurtagal way ragba u tashay zaid farmaajo madaxweynaha ka fiican inaanu Soomaaliya soo mari doonin صدق سنة صوص عضا يا فرتك سنة صوص عضا Soomaaliya oo dhamaatay baaba Soomaaliya wax gasho hog madow Soomaaliya idinka gacmihiina isku dilay wax maqli weedeen kama caasha marka war wada tashada waran heshiin may aye wakaas maanta Afrika xun ba ku talin doona iyo arag xun waxaan oo shaysi ba ku talin doona kama caasha marka way كم عاش marka bal hadda fiidiyogan aan isla dhageysano idinka horaaliya arkaysa ninkaan waa shacab Soomaaliya Muqdisho jooga bal dareenkiisa iyo maxaan dhahaa hawsha si xal u dhacday bal aan isla dhageysano cabarka bacdina aan isku soo laaban idinka horaaliya waa sidaas iyo isma qaadama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaalada Muqdisho kana shaqeysto bajaajle ah waxaan sheegi karaa aniga habeenkii xalay ahaa oo habeenkii ugu murugada badneed waayo maxaa yeelay adduunyada waxa jiro waxyaabaha qaarkood oo lala yaabaa jiro annaga xalay ismaana leen madaxweyne farmaajo ayaa soo laabanaynin marnaba isma lahayn balse way dhacday hase ahaatee Soomaalidu ma aysan dooranin nin cusub hadana kaaga daranta waxay doorteen nin shalay horay wuxuu doona ka samaystay ayay haddana dib u doorteen marka waxaan dhihi lahaa xalay
guul Soomaaliya ma soo hoyanine guul waxa soo hoyatay wadamo shisheeye ayaa soo hoyatay xalay waayo maxaa yeelay xalay Kenya waxa laga tuuray 22 madfac Soomaalida deganaa sheegi karto la hadla weydiiya 22 madfac tuurtay maxay u mashxaraday maxay u tuurtay 22 madfac wax kale uma aysan tuurin Soomaaliya jabkeedii ayay u tuurtay xalay Soomaaliya guul ma aysan gaarin xaqiiqada markaan ka hadlo xalay Soomaaliya waxay gaartay jabka kii ugu xumaa god mugdi ayayna rajadeeda ku sii dhacday waxa yeelayna waa xildhibaanada Soomaaliya la soo doortay jeebkooda u bay doorteen ma qarannimo ma aysan dooranin dadkoodana uma aysan nixin dalkoodana uma aysan nixin waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa Soomaalida waxay tiraahdaa waxaastay waxa ka sokeeyaday xasan sheekh maxamuud oo soo aragteen haddana qabiil ku dooranayna xasan sheekh maxamuud shalay wuxuu ahaa iyo maanta wuxuu yahay waa kala ogtiin hatta dooran lahayd nin cusub maanta Soomaaliya ciil ma aysan qabteen wuxuu la soo baxay un baan ogaan lahayn kali balse waxa doorateen nin shalay Kenya wuxuu ka yahay in xataa laga ogyahay ayaa doorateen marka adinka noloshiina god ku riday adinka dib isku horseeday adinka maanta Soomaaliya hadii aan nahay qaran weligiin ma noqonaysan qabiil una noqotaan kelimooyin waayo maxaa yeelay qarannimo ma rabtaan waxa qarannimo ku rabinaa waxay tahay jaabkiina ayaad buuxsateen ninkii shalay aan waxba idinka tacbanin ee dalkii dadka hogaaminaya daacad ku hogaaminaya ayaad lacag darteed u rideen marka walaalayaal waa idin salaamaya khayr ay idin rajaynaa waqti saamaysano insha Allah beenina karim ilaahay tan mid daanto Allah noo keeno ilaahay taasan ka baryaaya dalkeena Allah noo nabadgeliyo amni iyo wanaag iyo bashbash iyo barwaaqo Allah noogu soo koobo khayr ay idin rajaynaa waxa la yiri waxaad khayr shar u maleynaysaa mararka qaarkood khayr noqdo waxaad khayr u maleynaysaa mararka qaarkood shar ayay noqdaan ilaahay waxaan ka baryaynaa midaan inay noo noqoto mid khayr la inay noo noqotaan ilaahay ka baryaynaa waayo maxaa yeelay waxaan sheegna malaha madi calool ku tagtay dabaqabad malaha illa uu suwayba gaartayba marka insha Allah beenina karim ilaahay waxaan ka baryaynaa midaan inay noo noqoto mid aan maaragtay bashbash iyo buraaqo noogu soo dhamaato salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay waaragtay ma u maleeyay dhigiina ku maqasheen misaakiinka yarka ee bajaajlaha ee muqdisho degan dareenkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ka qabaa mudane Cabdullaahi Farmaajo because uu ogyahay mudane Cabdullaahi Farmaajo wuxuu qabtay wadanka kaligiisna ma waa Soomaali weydin baa og wax meesha lagu soo koobi karo maaha mudane Cabdullaahi Farmaajo abti sharaf buu yeelay iyo karaam buu yeelay caalamka hadda meel kasta markaas aad dhoofaysid ama meel soconaysid Soomaali markaa maqasho waa lagu sujuudaya awalna marka isaa lagu filay jam Soomaali maanta waa laga cararayo maantana waa arkaysaa mudane Cabdullaahi Farmaajo abti dhalinyarada ku jecelaasha ninka soo celiyay Soomaha gabdhii Carabaha lagu haysay ninka soo celiyay maaha gaaladii cadowga meesha wadanka ninka ka saaray maaha ninkii badaha soo celiyay isaga maaha ninkii xaan dhahaa dawladda iyo militariga dhisay isagii maaha ninkii ka dhigay maxaan dhahaa mushahar joogta oo qof kasta inuu qaato Soomaaliya ninka sharciyay isaga maaha ورقفدو كوفي عيه لما فقي ولا سود ويستا سوماليا دح مغليسين أنا ما قن قلق مش أقلق قال ما قرناه يا أنت أسكت عفتو حم تقولي مثلا يوم ماسق يلالوش كان عدو ندور دان صوتك سنة ود بيه وأركز سهر مجاري ثاني إلهي كبق النوم نو إلهي كبق النوم أدونك وادور برا لقيت جاي أركا شيقنا واد كوبيه هم العيال waxaan ugu dambaysiinayaa Sheekh Xasan oo hambalyeynaya hambalyo Sheekh Xasano please masaakiinta Soomaali jooga Soomaali please khaladadii aad gashay mar hore dib ha ugu laaban sheekhna waad sheeganaysaa magac weyn waa wataa kursi yarka aad ku dhaqdhaqleynaysid waa dhowr maalmood kaliya barna waa aakhira ogow 7 milyan oo Soomaali baa mas'uulkooda aad qaaday maalinta aakhirna waa lagu soo istaajinaya saagu jawaabsin adaa yaqaan tan isticmaal here look use this here
marka waxaan ku dhilahaa ambalyo. Okay, marka maanta fiidiyo waa gaaban yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal waxaan dhahaa share iyo like iyo comment kan hayloobina waa sidaas iyo maxaan dhilahaa ismaqal dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.